dhaweeye markuu dhulkeenna yimaa dhalintu faraxdo wayeel dhiirani dhawaaqa ceesho dhammaan culimadu dhambaalka dirto dalkii dhinacyada dhexdiiyo gudihii dhaqsuu ku fido waa ka dhidibki yeeshay dhumuxo dhaabadiyo sees allah u dhige dhaweeye taago munaasabadani oo ahayd mid lagu daafurayay shirkadda dhaweeye oo ah shirkad isku xidhaysa gaadiidka bulshada u adeega iyo bulshada adeegani oo ah mid la jaanqaadaya tiknoolajiyadda islamarkaana loogu talagalay inay fududayso adeegyada degdega ay bulshada u baahan yihiin sida goobaha ganacsi ee waxbarasho caafimaad iyo adeegyada kale ee bulsho ayaa lagu daafuray xalay oo ay taariikhdu ahayd 17 February 2019 caasimadda labaad ee magaalada Burco ee waddanka Somaliland adeegani oo si ballaaran uga shaqeeya magaalooyin ka mid ah dhulka ay Soomaalidu degto sida Hargeysa, Muqdisho, Garowe iyo Boosaaso ayaa sanadihii u dambeeyay ahaa mid wax weyn ka bedelay adeegsiga gaadiidka ee magaalooyinkaasi gudoomiyaha guud ee shirkadda dhaweeye Cabdiqani Axmed Maxamuud oo ka hadlayay munaasabadii lagu daafurayay magaalada Burco ayaa sharaxaad ka bixiyay aasaaska shirkadda iyo horumarka laga dhaxli karo adeegga dhaweeye ay u wadaan bulshada furo application ko u yeedho adoon isdibin adeega dhaweeye farxad weyn bay tahay runtii caawa inaan keeno gobolka Togdheer adeega dhaweeye oo gobollo badan oo geeska Afrikaan ka soo furay anigoo waliba ah nin reer Burco laakiin aad moodo inaan dambeysay magaalada Burco sababtuna waxay wax kala ma ahayn sidii magaalooyinka kale waaweyn yihiin ayaan u furinay geeska Afrika adeegan haddii aan wax yar isu taago adeegan wuxuu la mid yahay adeega aad wada maqasheen ilaha u barka aniga iyo group dhalinyaro markaa qurba joog ahaa 2017 waxaan hindisnay fikirka Uberka inaan keeno qaaradan Afrika anagoo markaa deganeen wadanka Ingiriiska waliba inaan keeno geeyigana Soomaalidu degto ee geeska Afrika inaan keeno 2017 markaan keenay daraasad baan sameynay reliability-ga internetka shacabka iyo teknoolajiyada si ay fahmayaan iyo maxaan ku raasida geeskana uga shaqeyn karo waxaan aragnay runtii inuu ka shaqeyn karo waxaan ku daafuray marka tijaabadii markuu ka baxay sanadkii hore 20 February 2018 ayaan magaalada Hargeysa ka daafuray adeegan sidii inantii ugu horeysay farax sheegtay waa adeeg transparency waa adeeg amaana waa adeeg dhinac kasta wax ka taraya hadday tahay isku xirkii bulshada hadday tahay dhinacii amniga hadday tahay xag transparency-ga hadday tahay dhinac kasta availability-ga dhinac kasta wax ka taraya qaar ka mid ah waxgaradka ganacsatada iyo dhalinyarada Burco ayaa ka gobol ahaan soo dhaweeyay adeegga dhaweeye kuna tilmaamay mid loo baahnaa waqtigan adeegga dhaweeyana Burco yaa laga badino xinka Hargeysa barta Hargeysa waynu isximinaa xabada kubadda cagta ka dhacda way maqlaan reer Hargeysa soo jeesto ina ka badisaan mar walba dhaweeye it's a lot different aad buu uga duwan isaguna uu ka kalsooni badan yahay tagaasidii iyo tigihiiba boqolkiiba boqol aad aaminaadiisa markaad eegto waa boqolkiiba madal lagu daahfurayo programkan dhaweeye taxi ee magaalada Burco ku soo biiray afka la igu yiri ku hadala waa afkii dhalinyarada magaalada Burco oo ah cid aan aaminsanahay inay faa'iidada ugu badan iyagu ku qabi doonaan isla markaana sida ugu ballaaran u adeegsan doonta ka dhalinyaro ahaan runtii door muhiim ah buu ka qaadan doonaa inuu inoo fududeeyo hawlihii kala duwanaa ee magaalada aynu uga baahnayn hadday tahay mid shaqo ka habsaamay oo ku degdegaya hadday tahay mid jaamacad iyo waxbarashadii gaab ka galay oo doonaya inuu si dhaqso ah u gaadho gaar ahaan waxyaabaha aynu kaga maarmi doono waxaa ka mid ahaa baskii 30 daqiiqana rarmayay 20 daqiiqana sii soconayay jidka hadduu doonana kugula jabaayay ayaad kaga maarmi doontaa in aynu iclaamino ama u gudbino bulshada gobolka Togdheer adeegga u soo kordhay iyo inaynu u ducayno shirkadda adeegga inoo soo kordhisay in Ilaahay uu barakeeyo adeeggu waa adeeg ganacsi ganacsiguna
waa qayb nolosha ku lamaan. xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco xogayaha dowladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh iyo xogayaha gobolka Togdheer Wali Khayr ayaa si isku mid ah ugu soo dhaweeyay magaalada Burco shirkadda dhaweeye ee lagu daafurayo mashruucan la yiraahdo dhaweeye ama over aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa haddaan nahnay degmada Burco u dhaweynaynaa waxaan u hambaliyeynaynaa waxaan u ducaynaynaa mulkiilaha shirkadda tan cusub ee casriyeysan ee la yiraahdo dhaweeye aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waan ugu baarigaynaa waxaan aad u soo dhaweynayaa oo gobolkii Togdheer magaaladii Burco aan ku soo dhaweynaynaa shirkadda dhaweeye ee barnaamijka cusub inoo wada ee gobolka Togdheer waxaan filayaa in ay magaaladu aad uga faa'iidi doonto oo hawlo badan si isgaarsiin badan u samayn doono. ugu dambeyntii ururka hablaha Talamaal ee magaalada Burco ayaa shahaado sharaf ku maamusay gudoomiyaha shirkadda dhaweeye Cabdiqani Khadar Hanad shabakadda wararkii Hadwanaag News magaalada Burco.